maanta marka halkan ka dhamaato oo waxbarashadaada ku dhamaato haddii first class ama second class ku baxdo darajo fiican hadaa ku baxdo adeeg ku anfacaysa haddii darajo hooseyso ku baxdidna sidoo kale Soomaalidu marka hal marmarsiyaan inta badan heesana ardayga markuusan si adag wax u baranin laab waqtiga ku soo dhameeyay waqtiga qarashna uu soo baxay waxa lagu leeyahay wadanka shaqo ma jirto dalka shaqo la'aan ka jirto anigu ma aaminsan runtii arday si adag wax u bartay oo darajo fiican jaamacadda kaga baxay aqoontiisa waxa uu bartayna waxa muuqda uu yahay inuu dhul lacay ani ma aaminsan marka adiga maanta naftaada xakamaysi biri ay u raaxaysato maanta raaxada hadaa u yeesho بريت وحواي وحده دونتا مرمرسيا كيني دونتا كلي اسويدي حد اديك انجليش انا برتانا halkan u dhaadeen ma ho xaw intaadan jiifsan ka hor 5 daqiiqo naftaada su'aalo kooban weydii waxa tiraahdaa 12 saac u dambeysay english ina baratida halkan u imaad sax maxaa naftaada ku soo kordhay 5 eray oo cusub bartay maxamed waxba kuma soo kordhin nafina taa dib u qaad isbuuci u dambeeyay fiiri nafsadaada maxaa ku soo kordhay bishii u dambeysay fiiri haddii waxba aysan jirin marka waqti inaad naftaada su'aal sii weydiiso isaga sii loomin kaliya go'aan qaada markaas oo ah inaad naftaada xakamayso marka waxa idin kula dardaarmayaa inaad waqtiga ka faa'iidaysataan wax walba waxa ugu qaalisan waqtiga sidee marka ku xakameyn kartaa naftaada oo aad adiga ka adkaato inaad adiga u meeriso waxay qabanayso inaysan iyada ku meerin saama ha wixii dantaada ay ku jirto waqti waa sii kartaa laakiin waxaysan dantaada ku jirin inaadan isaga bixinin waqti badan gudoomiye ya dhamaan intana dhageysanaysa waxaan ka codsanaynaa gudoomiyaha waliba xil weyn buu hayaa xilkaada haysana aad iyo aad waa kugula shaqaynaynaa insha Allah ilaahay idamki waadna ku mahadsantahay booqashadaada iyo dhiirigelintaada iyo encourage-ka aad noogu timid iyo sida aad noo siisay hadii ay ku soo ogol yahay tusaalaha iyo inaan chance ka dhiga aan ka faa'iideysan sida aad noo siisay iyo wadada dheer adiga iyo asxaabtaada noo soo gasheen waan kaaga mahadcelinaynaa waxaan rabnaa inaad arintaas la abaabulo ama dalka hal dibadiisa hal joogo ama gudihiisa hal joogo dawladnimada loo kaco aan ka saarno Soomaaliya maanta meeshii marayso meel ka wanaagsan qof walba oo Soomaali inuu xil iska saaro nolosha waxa waaye waxa baratay oo adigu aad dhan kasta ka raadi yaani maanta waxa jaamacadu lagu dhigay ama macallimiinta maanta ku siinay ma ahan wax yar oo yaani wax weyn ay raad wax weyn oo macallinka ku siin kara ma yaani macallinka waxba ku tataabanaya kadibna aad raasini Soomaa siyaas awgeeda maxaa laga baayaa marka macallinkii meeshii ku ifiyo wuxuu ku dhahay sidaas wax u jiraan marka adiga waa qofka la rabo inuu raadkaas daba galo oo soo raadiyo topic kasta oo lagu dhigo adoo muhiim ku yahay